maalimahan dambe suuqyadii waxa ku batay cabsidii iyo weerarkii war haddii soo gaaraya wuxuu sheegay suuqyada oo idil inay maran yihiin taasoo sababtay dagaal baryahan meesha ka dhacayo in la filayo weerar in la soo qaado amnigeena aad ayuu adkaa laakiin anaga ma filin weerarkan burcada inay nagu soo qaadayso laakiin dib malaha wixii kale anaga ayaa xalleen isdejiyo shacabkuna booliska waxay ku dhaliilayaan shaqo xumada ay maalmahan dambe hayaan taasi waxaa ka daran sida la sheegay booliska inay ballan qaadeen burcada weerarka geystay inay gacanta ku dhigayaan laakiin ilaa iyo hadda wax raad ama aysan helin balse waxaa la filaya waqtiyada soo socda booliska inay warbixin nagu soo kordhin doonto taasna waa idiin soo gudbinayna waa anigoo ah DJ Ba filimkani waxaa lagu tarjumay studio Farmbroch Mogadisho Farmbroch.com ভুলে আমি তোর কাছে বাধা পড়ে গেছি ভিড় আজও একা হলে তোর কাছে ছুটে চলে আসি তুই মন ছুঁয়ে গেলে ঠোঁট মেখে ফেলে হাসি অচেনা শহরে আজও হেঁটে চলি তোর পাশাপাশি তোর নামে তোলা থাকে খুনসুটি পাগলামো তুই না থাকলে বল তাকে আর পাগলাবো চুপ কেন সব বুঝে অযথায় বোকা সেজে কিভাবে বোঝাবো তোকে আমি কতটা ভালোবাসি তুই বড্ড বাজে পারিস তো মাঝে মাঝে যে কোনো বাহানা খুঁজে আসতে আমার কাছাকাছি ভুলে আমি তোর কাছে বাধা পড়ে গেছি ভিড়ে আজও একা হলে তোর কাছে ছুটে চলে আসি মন খারাপ ভিড় করে আজও তুই দূরে চলে গেলে তোর কাছে শান্তি তাই থাকছে না মন কোলাহলে থাকলে চুপ নিঃশুনে চোখেরা কত যে কথা বলে আদরে অভিমান ভুলিয়ে দিস রেগে গেলে আজ আমায় মানিয়ে নিস চোখ যদি জলে ভাসে আজ আমার পাশে বসে আলতো দু হাতে চোখ মুছিয়ে দিস ঠিক ভুল ভুলে আমি তোর কাছে বাধা পড়ে গেছি একা হলে তোর কাছে ছুটে চলে আসি তুই মন ছুঁয়ে গেলে ঠোঁট মেখে ফেলে হাসি অচেনা শহরে আজও হেঁটে চলি তোর পাশাপাশি run ahaanti maanta xasuus ayaa i gelisay waagii kullejka aan dhigan jiray waxaad ii imaatay maalin anigoo maqaayadda ku jira waan xasuustaa weliba waxaad i weydiisay aniga lambarkayga laakiin waqtigaas shaqadaada iyo sinjina sidaan dareemaya mowqif adag ay dhex dhigaysaa su-aashaada jawaabteedana laba mid ayay noqonaysaa waa adiga ama shaqadeeda ahaa waad saxantahay iga raali noqo aniga waxaan isku dayaaya in aan wax ku fahansiiyo balse adiga wax waa fahmi weysay dhibna uma arko mudana feelka waa kana oo qabso waaya walaal mii maqashaa codkaygu ku soo gaaraya mii maqashaa walaal
asalaamu calaykum shahzaad ayaa kula hadlaayo qasriga qadiimiga ayaan ku sugaya hadiyaddaad igu tala gashay aniga keligay maan xataa familkao dhan way joogaan hadiyad iyo lama filaan iyo fariin iyo qasriga qadiimiga astaanta isticmaalaya markaa arka waxay caddaatay burcad inay yihiin raajeesh waxaan kaa rabaa adiga wax walba inaad ii soo ogaato codkana aad ii tixraacdo meesha ku sugay inaad ila socoto waad garatooma nimraad adigana waxaan kaa rabaa telefoonkaas meesha layga soo garaacay inaad soo ogaato waa igu ogtahay waxaan rabaa inaan ogaado ninkaasi cidduu yahay iyo weliba qasrigaasi meesha uu ku yaalo waa qasab inaan ogaado على كل حال aniga waxa ay farxad gelinaysa mar walba inaad garabkayga taagan tahay adna soo hormuuqato laakiin wajigaaga dhol cadaynta maxaa loogu leeyahay runtaa waxay tahay adiga waxaad u malaysaa shaqadaada inaan necbahay laakiin shaqadaada waana ixtiraamaa xaalad adag ayaa ku jirtaa waxaa qarsato way ku qarsadaan xisaabta ku darso marwa meesha lagaa soo wacaya markaan ogaano waa keenta inay tawaaban ogaadeen meeshay ka tahay inaan ogaado waa muhiim waay marwo warbixin ayaan ku hayaa codka qofkii lahay waan aqoonsi weyne balse laba cod isku eg ayaan aragnay sheesaad iyo aftaab codkoodu way isku egyihiin baaritaanka markaa sameynay sidaas ayaa noo soo baxday aftaab ansaari alla ilaahayo asxaabta ilaan aftaab ansaari uu soo laabtay ninkan aad u jeedaan waa maskaxda weerarada dhacay oo dhan xitaa safaaradda maraykan wixii ka dhacay isagaa qorsheeyo shahzaadaa oo magac afgarishihiisa ku beddelay aftaab ansaari weerarkaas kadib isagu wuu ka soo tegay magaalo ayuuna tegay macluumaadkiisoo dhanna saas ayaa loo aas-aasay ilaa hadda boolisku kama war hayaa meesha uu ku sugan yahay booliskuna ma oga aftaab ansaari magac garashihiisu inay isku beddeshay ka gudub middaas hadda waxaan kaa rabaa wax walba isaga ku saabsan inay tixraacdo raajeesh adiga waxaan kaa rabaa wax walba fiilkaas ku saabsan inaad ku dhaqaaqda dhaqso mishinka shayzaadaa waa inaan guudagalnaa burcadan waa inaan waddankeena ka sifaynaa weliba innagoo dareeskeena wadan dhool caddaynayna carruurtana iyagoo dhool caddaynaya waa inay guusheena ku farxaan si fiican ayaanu ogahay daakir arrintan shaqada markaa ka soo baxda kadib marna ma istiri xaaskaaga xaaladdeeda waa sidee ma iga fikirtay ma ogaatay wax aan ku suganahay waxaa adag marba haddaa ka tirsan tahay ciidanka sirdoonka inaad nin wanaagsan noqoto sababtaad u noqonayna waxay tahay waajibka dalkaaga ayaa ku saaran soo maaha sirdoonka lambar 9 may maqlaysaa ها أماندا waxaan kula hadlaya Zaakir Axmed iga raal noqo maadaama xilligan ku dhibay laakiin warbixin cusub ayaa jirta qofka gacan ka soo hadlay iyo ansaari isku cod ayay noqdeen taas ayaan anaga shakina gelisay aftab ansaari ma ay tiri okay meesha idin kala soo hadlay ma tixraacdan ها waan tixraana ilaa hadda laakiin maanu aqoonsan meesha ay tahay macluumaadkiina soo gaarna waxda baaritaanka ayaan qeybay dhammaan igu xiriiri waayahay taliya dhammaantoodii maqashaa soo ma telefoonada diyaarsada waayahay marwo sirdoonka lambar 9 ayaana howlgalka hogaaminaya kooxda ABC na diyaar waxay tahay garab inay kugu siiso mishinkeena shizaadna hadda ayuu bilow yahay sirdoon 9 ayaa idinla jiro aftab ayaan gacanta ku soo dhigayna meesha uu joogana waxay noo jirtaa 2400 mitir garabna waan u baahannahay midaas waa inaad ogaataa anigu garab kuma siin kara hadda waxaan kaaga baahanahay hawshaas adigu si degdeg inaad ku dhamayso ma i maqashaa hawshaas si degdeg inaad adigu ku dhamayso ayaa loo baahan yahay aloo ma i maqashaa shit saakir adiga maxaa kaa qaldanna ii sheeg sanjina howlgalkan waxaa liiga rabaa inaan galo aftaabna gacantan ku soo dhigo meeqa jeer ayaan ku dhaha adigoo howlgal u socda waa ku baryaa gaarigaaga ha igu kaxeen hadda aqligal miyaa marka inaan kuu raaco meeshaad shaqada ka soo qabanayso kan adiga maxaad iga filaysaa ma burcadkaas ayaan u ogolaada waddankayga si xurriyad leh inuu ugu noolaado ma halkaan iska fadhiya aniga aniga sababtan kugu baqaayo mala socotaa horta
howlgal ayaad u socotaa ma ogtaha inta qof oo kaa horraysa waxa ay yihiin waad iska socotaa ka waran bal hadday dhibaato ku soo gaarto ama dadkaas ay ku dilaan yaa loo raacanayaa hadhow shaqadaada leh ha ku indhaadkaan shaqadaada aniga waa anigoo kale waxaad ogaataa waddanka in loogu talgalo naftii waro ninaa ehelleen maxaad iskaaga dhigaysaa famil ayaa kaa dambeeya dhulka miyaad ka dhalatay ii sheeg wax maqal horto waddanka ayaa familkaygiya wax isku sheegaya qayceeb maaha dantaada waay waxaan ka hadlaay inaad fikirtid isku day waa maxay sababta madax adeegaan iga aamus warkaygana maqal gaarigan ayaan kaaga dhex tegaya meeshaanaa ka tagno waa gardsoma ha samayn adaan kula hadlaayaa joog saakid adaan kula hadlaaya xaggee u socota ifaan gaarigaa ka soo degin meeshaad iga joog okey yaaqay kaalay أماندا مي مقاشا برتلمامتك وان تاغناي أماندا أديكن كula hadlay bartilmaameedka waan taaganahay qasriga qadiima lagu sheegay waa guri cariisha 9 nin ayaana meesha ku jirta mid kamid ah waxay la tahay aftaaban saari inuu yahay howlgal wacan ayaan ku leeyahay waxaan ka rabaa sidaas inaad warbixinta igu soo gudbiso shahzaada meesha ku sugay waa qasab inaan ogaano sidoo kale talaabo walba ay qaadayaan inay la soo socodsiiso waa muhiim tiimkuna wadadii ku soo jiraan dadaal ayaan ku leeyahay howlgal wacan shahzaad cariish waa uu ka soo baxay bacdama saasay tahay waana weerar ku qaada maya adigu talaabo ma qaadi kartid halis ayaad ku sugan tahay 5 daqiiqo oo kaadi tiimku way ka soo gaarayaan kaliya inaad talaabo qaado waa laga fiican yahay maya fursadan waa inaan ka faa'iidaystaa dadkaasna gadaal ayay ka imaanayaan waan sugaya goobtana aniga ayaa u sheegay kulley hawsheeda waan qabsanaya aniga maya adigu talaabadaas ma qaadi lagu dhahaa nabaday tali adigu may maqlaysaa waan ku barayaa sug tali shit walaal dad ayaana daba taagan waa inaan iska ilaalinaa halo may maqashaana halo maqal ma jiraa halo waxaan kula hadlaysaa saakir xaaskiisa halo run ahaantii annaga dhulka kayma ayaan joognaa xabada ayaan socdo ninkayga caawinaad ayuu u baahan yahay waa idin baryaa halo amaadaa may maqashaa marwa si fiican adigu ii dhegayso keliya waxaan kaaga baahanaya inaa isdejiso isaga tiim ayaan u soo diray goor dhowna way idiin imanayaan keliya waxaan kaaga baahanaya inaa isdejiso ninkaasina wuu isdifaaci karaa ha ka warwari waan ku barya adigoo raaliya gaadhiga ha ka soo degan ayaan ku leeyahay halo
qaacidooyin waxaa jirta annaga aan isticmaalno waxaa ka kowa kufaarka inaan dilno tan labaad si aan kufaarka u dilno waa inuu qalad naga galaan qalad markuu naga gala kadib ciqaabtiisa ayaan annagana marsiinaa magacaygu waa aftaab ansaari naanaysteedana waa shehzaad sixirka madowna aad ayaan ugu dheerayaa interbolka aniga maxay ii yaqaanaa ma taqaanaan ruuxaanta madow ma awoodaan aniga haddii ay qabtaan xataa inay iga hor istaagaan jihaadka aniga aan u socdo balse aniga waxaan awoodaa kufaartoo dhan inaan baabi'iyo ku soo dhowow balenbi sheezaadda haddii aad gacanta ku dhigto ogow 3 daqiiqo oo keliya 3 daqiiqo oo keliya ayaad haystaa kadib wax walba ayuu samayn karaa 1 2 3 سنجنا إلى هذا سنجنا وبتباديسا أنا جاي أسبيتال كوكينا وحباك بقين سنجنا إلى هذا سنجنا هناك الفر سنجنا adiga wax kasta oo samayso waxa laga rabaa dalkaaga in aad gacan bir aad ku qabatid waxaan kale aan kula dardaarmaya aniga dadka sidan ii galay dad kale iyaysa sidaanoo kale u gelin dalka waa inaad xuraysaa ha ogolaani ماي سنجنا لا سنجنا اسئل علي يا سنجنا سنجنا وكبري هاي قلت سنجنا هاي gurigaaga cusub ciwaankiisa waa kana midda kale warqadaha sabarloogiyadan waan ku diyaariyay tikidkaad safarku aadi lahaydna kalkata feelkan ayuu ku jira wiilkayga anaga kaama tegi karna run ahaantii waayo keli ayaad noqonaysaa wiilkeenoo kalena waa tahay marka kelinimada ayaan kuu diidannahay aniga baan jeclahay inaad ila joogtaan laakiin joogistiin aniga wax miisoo kordhinay sababtoo ah waxaan ahay nin geeri u labistay mar walbana geeridu way dul taagan tahay mana rabo dadkayga ama qaraabadayda geerideeda inay saameyn ku yeelato sidoo kale cunugtayda diyaana waxaan rabaa nolosheeda inaysan halis gelin mas-uuliyaddeedana si wanaagsan aad u qaadaan oo aad ilaalisaan weliba sidaad aniga iyo xafidaan oo kale waxaadna ballan iiga qaadaan cunugtayda inaadan u sheegin aabbaheeda inaan aniga ahay sababtoo haddii ay taas dhacdo gabadhayda nolosheeda halis ayay gelaysaa marka waa idin baryaa middaasi oo keliya ii sameeya gabadhaydan ii ilaaliya maxaad samaysayna adiga wixii oo dhan faraha ayaad ka qaaday soo maaha maxaa ka wadaa marba adiga haddii aan ku waayey wax walbana waan waayey waxaad waynin way jiraan waana gabadheena diyaa shilka markuu igu dhacay kadib adigaa xanaanaynaya soo maaha shil maa tiri waxaasoo dhan sababtayda ayay ku maya saakid
adiga ma guuldaraysanin waxaad xasuusnaataa hal qalad oo dhacay dartiis inaan wax kasta aadna u dhaafin mas-uuliyad culus ayaa dusha kaa saaran laakiin aad baan kugu xiisay aniga kaama fogin waxaana rabaa mar kastaba inaad ahaatay saakidkii aan ku fahani jiray inaad joogsato ma rabo wax kastoo dhacayna waa inaa ilowdaa waan la socdaa tallaabadaas inay kugu adkaanayso balse waxaad mar kasto maankaaga ku heesaa garabkaaga in aan taaganahaa si degdega xafiiska inaad ku timaado ayaan kaaga baahnaa taliya zakir warbixin buu soo gaarteen adiga weliba warbixin dhammaystiran raajaa oo ku sugan koonfurta kalkata ayaa ii soo gudbiyey waxaan na ogaanay aftaab ansaari inuu hadda ku sugan yahay kalkata ruuxaanta madow halkaas ayuu joogaa bartilmaameedkii sheeg waddada mehraa mahli bazaan aftaab meesha ugu dambaysay lagu arkay waxay ahayd barhamaan 2 bil ka horna wuxuu qarax ka fuliyey goorgoor isaga iyo asxaabtiisana meeshaas ayaa guri uga samaysan gurigaasna bambooyinka ayay ku sameeyeen daraagiska ayay ku iibiyaan warbixinta ugu dambaysay waxay sheegaysaa ninkaas meeshaas hadda inuu ku sugan yahay agaarkaasna uusan ka dheereen howlgalna uu rabo inuu meesha ka soo abaabulo wuxuuna rabaa hadda meesha inuu ka tago sababtoo kalkataa ayuu soo socdaa wuxuu rabaa howlgalkiisa inuu kalkataa ka dhex fushto laakiin waa inaan ka hor tagnaa intuusan howlgalkaas fulin zaakir waa doorkaaga noo sharax taliya 2012 dawaaris ayuu qarax ka fuliyey gargajaar 2014 ka fuliyey maantana waa kalkataa howlgalkeena waa uu iska fudud yahay aftaab ansaari waa inaan soo afjarnaa sida ugu dhaqsiyaa badan amaanta mudane waxaan kaa rabaa koox habaysan Waaya, laga diyaariso sida ugu suurtagalka badan ninkaasi waa inaan ka hortagnaa meeshaasina ka dhaqaaqin asxaabta aftaab ansaari meesha ku sugan yahay aan soo helna hoteelka kataaliin maktabad ku dhex taalla ayuu ag taagnaa sidoo kale waxaan soo hubinay meeshaas inuu degan yahay wax walbuu samaynayna halkaas ayuu ka fuliyaa warbixintaasoo dhan waxay ii soo gudbiyeen nin biitu lagu magacaabo wuxuuna ii sheegay sidoo kale hoteelkaas inuu qolka degan yahay laakiin qolku yahay ilaa hadda anagu maana aqoonsan waxaan ogaanay oo keliya ninkaas howluhu wadoo dhan qolkaas inuu ku fuliyo laakiin hadda dantiin waxayba tahay qolkaas wuxuu ka dhex qabanayay danta uu leeyahay inaan soo ogaano faylkiisa inaan soo baarna ayaa muhiima qolalka idilna waa inaad baartaan magacyadana waa inaad dib ugu laabataan waxaa macquula hal magac inuu idinka baday shabuna shaa wuxuu ka shaqeeyaa maxkamadda sidoo kale 2 qol ayaa magaciisa ku karaysan amiir shoodi waa ganacsada sidoo kalena 2 qol ayaa u karaysan sbeertan sidoo kale 2 qol ayaa u karaysan VB iyo jadhaaf laba lagu magacaabana 4 qol ayaa ku karaysan amiirka aad sheegayso waa sheezaas amiir shawdari asaan sheezaas la dhahaa sidoo kale qofka meeshaas degan magaciisa dhabtaa waa aftaab ansaari amaanda hoteelkaasi waa inaad rag u dirtaa weliba waddooyinkiisana waa in la fiiriya inta soo galaysa hoteelka inta ka baxaysana waa in la soo ogaado qolalkiisa intuu kaga wayana waa in la ogaado ilaa ay idinkaga imaado talaba ma qaadi kartaan waaya mudan laakiin adiga tilaabadaas ha isku qaadeen sababtoo ah meeshaas shacab fara badan ayaa joog adoo dantaada fiirinaya shacabkaas ha baabi'inin sababtoo shacab masaakiin ayaa halkaas ku nool hal xabaad haddii aad rido soo ma ogid ayagan in la baabi'inayo dhibaatana ay soo gaarayso adoo dantaada fiirinaya rabtaa marka dadkaas inaad dhibaato taliya gaarsiiso aftaab ansaari ayaa meesha ku sugan dadkaasna hadda asaab ansaari hadduu meesha ku sugan yahay waxaa loo baahan yahay qolkuu ku sugan yahay inaad soo ogaato warbixintiisana aad soo gudbiso u kaadi hadalkayga dhegeysta afkaaga inaga
ma loo baahno doorbinkaaga aftaab ansaari oo keliya inaad shiishada saar waxaa loo baahan yahay dadka ku hoos dhuumanayo in aad soo qabato dadkaas sideed ku soo qaban kartaa waa markii aad u kurba gashamaho ka fiirsaan ku dheelaa amaanda qorshe maxaa haysaa taliya waxaa loo baahan yahay tallaabo markay qaadayno 100 jeer inaan ka fikirno ninkaas waa nin aqli badan waxaana loo baahan yahay qorshe aad u adag oo isaga ka adag inaan u degno maahana si kale gacanta kuma dhigi karno tas siday ku suurtagalaysaa ma waxaan ogaan karnaa marka aftaab ansaari halka uu ku dhumanayo 9 bilood ka hor boolisku gacanta waxay ku soo dhigeen inaan yaroo jaamacad dhiganaya laakiin kadib xirfadiisa markay ogaadeen waxay go'aansadeen gacanta inay ka qaadaan ay bannaanka u sii daayaan sababtoo ah xirfadiisa inuu ku meel maray go'aansadeen adigu gabay ma garanaysaa warshadda ganacsigooda waxay ka samaysan tahay bir adagoo la geli karin sidoo kale iyaga qof ka mida mooye qofka lacagta inuu geliyo lagama yaabo laakiin haddii uuna qof bili'aadani geli karin aftaab ansaarina la kulmi karin baashan ayaa gelaysa caawa howlgalka annaga ayaa ku qoran gaalada inay seexata ma rabo waxaan rabaa kufaarta in jiifka loo diido annagana aan shihino askari dhegeyso ahaa taliya howlgalka waan bilaabaynaa laakiin waxaad ogaataan meeshaas marka hore inaad iga hubisaan hoteelka cidda soo baxaysa cidda sii galaysana waa inaad si fiican u fiirisaan waaya taliya wax su'aal ah midda kale meeshaas waxaa ku yaalla hoteelo fara badan waxaa macquul ah in xabada la isku bilowo xabad idinka inaad ridaan uma baahna midna waa inaad xusuustaan ilaa ay idinka imaado waa inaad ilaalisaan dadka meesha degan hana fududaanna adigana isdejiyaa waryaa dad ayaa gudaha soo galay waa inaad digtoonaagtaan is ilaaliya aftaab ansaariya asxaabtiisu way ogaadeen gudaha inaan annagu hadda soo galno waryaa waa inaad dadka iska dhicisaan sidaad xabad ugu wadaan in wejiyadooda la aqoonsi waaya ayaan u baahanahay iska dhiciya dadka meelna iska saar zaakir ka soo laaba ayaan ku leeyahay waddadan ka soo laabasho ma lahana maanta iga raalno howlgalkan sidiisa ayaan u wadaya adigu waxaad ii sheegtaa qaabkaan u dagaalamay laha oo keliya waa i garab somaa zaakir may maqashaa ka soo laaba ayaan ku leeyahay tiimka koowaad waxaa ku wargelinaya inay ka soo laabtaan halis fara badan ayaa jirta ka soo laabta ayaan idin leeyahay tiimka saddexaad iyo tiimka afraad waxaa lee ka soo laabta ilama ahan maanta meesha nolol inaan ugu baxayno weerar culus ayaana lagu soo qaaday waa inaan isdifaacnaa
kafee ma cabaysaa waa mahadsan tahay laba akhbaar oo aad u xun ayaan idin haya akhbaarta koowaad waxay sheegaysaa aftaab ansaari gurigiisa in uu ka baxsaday gurigiisa markii la galayna talmaad waxay sheegaysaa wax tixraaca in laga waaye meeshaas laakiin ugu dambeyn waan soo heli doonaa tixraac dadkaas aan ku tixraacno hal midna aan idin sheego dadkaas waxay diyaar u yihiin si ay annaga noola dagaalamaan qorshe labaad in ay la imaadaan annagana waxaa noo muhiim ah aftaab ansaari dhaqdhaqaaqiisoo idil in aan la soconno ha noqoto fariinada asiguu soo dhaco dadka soo waca inta waa inaan la socnaa hal macluumaad haddii aan keenno macluumaadkaas wuxuu noo sahlayaa ninkaas sidaan gacanta ugu dhigi lahayn aftaab ansaari waa madax burcadda tiimka lagu magacaabo jeeshuraxma ayaa ilaaliya dhaqdhaqaaq walba oo aftaab ansaari ku saabsan mana rabaan inay bannaanku baxaan annagana waxaan rabnaa inaan gudaha u galno oo aan jabsanno ammaanta adigaan kuu xil saaray hawshan iga soo gebagabay ninkan ha igu halen hay see you amarkaaga jir taliya saddex koodhoo kala duwan ayaan soo helay saddexdooduna si kala duwan ayay u qoran yihiin mudane midka u horeena wuxuu ka kooban yahay 10 xaraf BOM triple C CB OG lambar sireedka labaadna af English ayuu ku qoran yahay kayaan nambar sireedka u dambeeyna 10 nambar ayuu ka kooban yahay nambarada saddex xaraf ayaad u aragtaa soo maaha alloora marka nambarka koowaad ka fiiri kaas ayaa wax walba ka raacina ka u horeeya waa koodka Bombay marwo CCV waxaa loo isticmaalaa computer waxayna ila tahay in laga soo gaabshay control C iyo control V oon u taagan koob baas Bello COG na talo maxay u taagan tahay magaalada farxadda ayay u taagan tahay oona ah Calcutta control C iyo control V oo u taagan copy iyo paste Calcutta talo maxay ka qabanayaan dadkan qorshooduna muxuu yahay mise Bombay wax uma leegayaan waad saxan tahay koodka labaadna fiiri identity tanna maxaa laga wadaa kelimadan ingiriiska maxay u isticmaaleen midaas inaan fahanno waa muhiim kulley burcadda wax ka suurtooba annagu ma garan karno maya ugu horreyn waa inaan soo ogaana ereyga NTT wax laga wado kadibna waa xarfaha inaan isku darnaa wixii ka soo baxana aragno si fiican ila fiiriye TNT waa goobta bombada lagu sameeyo waan soo hubinayaa sug Calcutta iyo Bombay inay qaraxyo ka fuliyaan ayuu yahay qorshahooda 12 nambarna maxay yihiin maxayse ula jeedaan taliya sad u jeeday imikaba siiro ayuu ka bilaabmaya lambar walba laba lambar markii ka gudbaana laba siiro ayay noqonayaan waa la yaab soo maaha nambarka ugu dambeeya ayaa wuxuu yahay 033 nambarkaasna waa nambar kood hindi ah koodkaasna waa koodkii ugu horreeyay magaalada Calcutta loo isticmaalo haddii ay sidaas tahayba 033 waxay u fadhidaa koodka beelkood lambarada dambena waxay tahay Calcutta afar lambar sireed ayaa laga isticmaalaa magaalada Banshut 017 Shamzada 004 Salda 014 magaalada u dambeysana Dollywood ayaa lagu magacaabaa taasna waxay la micno tahay qorshe weerar inay qaadi doonaan afarta magaalana hal mar ay weerari doonaan 26 November ayay weerarayaan Bombayna waaba arrin wanaagsan waxa loo baahan yahay maadaama macluumaad haysana inaan tixraacno gacantana aan ku soo dhigno tiim ayaan u diraynaa shaqo wanaagsan dhammaantiin wax wanaagsanaan lahay ma jirto sidaan dareemaya aftaabna anaga gacanta kuma soo dhigi karin waqti xaadirkan waayo ninkaasi lama oga meesha uu ku sugan yahay teleefonkiisa keliya haddii aan tixraac ku samayn waxa suurtagal ah weerarada uu qaadayo idil inuu bedelo annagana macluumaad aan heli weyne markaas tusaale ahaan halka weerarka uu ka dhacay waa inaan beegsannaa good keliya wax ma soo kordhinaysa sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan doonaynaa inaan howl u qabanno ciidankoo dhan ee Calcutta ku sugan waa inaan wargelinaa burcadaas arrimahooda aan ka wargelinaa booliiskana waa inay dhaqdhaqaaq sameeyaan xitaa kuwa badaha ilaaliya waa inaan dhaqdhaqaaqaas aan u sheegnaa in meeshooda ka istaagan hawshoodan ay qabtaan aftaab ansaari inta magaaladan si xorriyad loogu wareeganayo magaaladan amni ha ka sugina wasiirka arrimaha gudahana waa inaad ii wacdaa ammaanta oo ii wargelisaa si aan aftaab ansaari baxsad aan ugu dilno ama gacantaan ugu dhigno warbixinaan kuu hayaa si fiican u dhegeyso hoteelkii ay asxaabteena degnaayeen weerar lagu qaaday booliiskana asxaabteenna way baabi'iyeen qaarkoodna way dhaawaceen ma aysan dhiman waryaa ee way shahiideen dadkaas naftooda waxay u horeen annaga si aan ku noolaanno islaamnimadana ay jirto booska shuhadada allaha geeyo aamiin
mujaahidiinta cali tabliiq shooda sidaas miyay ugu dhammaatay ayagana sidaas miyaa lagu waayey maya sidaas uguma aysan dhammaanin balse ayunkaa waxay u malayaan annaka inayna baabi'i karaan xitaa 10 qof hadday naga dilaan sidaas annaka kuma baabi'ayno ee waan dagaalamaynaa waa inaan jihaadnaa jihaad oo keliya ayaa annaka naga go'an waxaana ogaataa geesinimo in loo baahan yahay waddankan waxaad ogaataa diinteenna inaan laga qiimaynaynin dadka magaalkan ku nool masjid xataa nooma daayaan ee way burburiyaan xitaa kitaabadeenna ayay gubaan dumarkeenna xataa way dilaan oo kow ayay ka siiyaan taas waxaa kaaga daran kashmiir hadda kahor ciidamada indiya carruur iyo maata ayay ku laayeen taasba waxaa kaaga daran kashmiir looma oggola qof muslina gudaheeda inuu ku sugnaado xitaa dowladda waxay diyaar u tahay dadka muslimiinta oo meeshaan deggan inay baabi'iso balse muslimiinta ayaaba taas oggolaanayn oo way diideen waxayna diyaar u yihiin jihaad inay kala hortagaan oo ay shahiidaan si walbay ahaato ilaa iyo haddeertan annaga hindidan xunta ee cashir uma aanan dhigin balse marnaba lagama yaabo inaan aniga jihaadkan joojiyo waxaana ogaataan ururkeenna weligiis inuu jiri doono insha allah berita magaalkan waxaan ka samaynayaa weerar aan kala joogsi lahayn kala katana burburkeeda iyo baabi'eeda ayaa u bilaabanayo الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عديدان سنتاي قرصنا معي كان لكن سيدو كوغا عديدان على شدادينا تاسدوني وصوتري شيء تصرفينا وغادي شيء يا اخي وحنا يقرنيا gabadhayda baqshadan hadda uu ku keenay fariin ugu dir una sheeg fariinta hadii uu dir guriga ma biimaada ba yaa u keenay fariintaas ciwaankan ma bakasaaye saasku ogaanaye waa saxantaa gabadheedii santa wax walbo qarson waa uu oga karaa bannaankana waa uu soo saari karayaa xataa dadka asiga jecel qalbiyadooda aad ayuu ogyahay soo saxma taas deetay oo fududaabe labadiina laa waay santa labadiina dunida ay jecel mayno maya gabadhayda dunidan waxa ku nool qof kaloo si xad dhaaf kuu jecel markii laga reebo khaasatan inaan anaga si xad dhaaf kuu jecelnahay taas horta waa oo shalay macalinka iskoolka maxasnoo sheegay mataqaanaa hooyadu wuxuu dhahay ilmeed saa'iday u jeceshay markii ayayaashaada laga taga hooyadii horta ma banaalaba xagga saraa loo xawili laakiin adoogay aawe anigana maxaa siigu imaan waaye yaqay sanad walban dhalashadeeda haddii maxaa siigu keeni waayen ayeeyo aabbahay waxaa u malaynaa ninka qarsanba inas asiyaay oo xagga sarena caas jira soo maaha maya gabadhayda aabbahaaga waa geesi meel fog ayuuna ku nool yahay sidaas darteeda ayuu kugu imaan waaye okay dhib malaha hadisba geesiya sheekadiis adaa ii sheekaynaysa maalin mayno gabadhaydi kaale laabtii geli madax adeegan maxay tahay mar kasto maxaad iigu madax adeegtaa ii sheeg gabadhan ayaa ka fikiraaya lama baahna aabba inay leedahay inaad u sheegtaan gabadhayda waayahay wiilkayga laakiin ha ka fogaanin gabadhaada
inantada dee way weynaatay soo maa wan hubaa inay weynaatay weliba aad u qurux badnaatay waaba sababta aan u noolahay hooyadad ayaan ka ballan qaaday gabadhayda inaan barbaarinayo mas-uuliyaddeedana qaada ammaankeedana sugayo waan ogahay waana la socdaa adigu qalbigaaga inay boos weyn ku leedahay waana la socdaa inaad ka murugaysantahay maadaamood ka fogtahay inantaada maantana waa dhalashadeeda mar dhowna xaflad ayaa loo dhigi doonaa dad fara badanna way ka soo qayb galaan sidaas ay tahayna aftaab ansaari magaaladan si xorriyad leh ayuu u wareegayaa cid og ma lahan meesha uu ku sugan yahay xafladda inantaada dib looma dhigi karo miyaa waa inaan tallaabo qaadaa macquul maahan inaan ogolaado gabadhayda nafteeda inay halis gasho adigana garaaruqo gabadhayda xaq uma lahan miyaa dhalashadeeda si farxad leh in loo dhigo gabadheena diyaa ka fikir hooyo lahan aabbaheed uma dhowaa waxaad ogaataa xafladdaa yar ee loo sameeya iyada farxad in ay ugu jirto marka inaan farxad gelin maxaad ku diidee sanjina hadalkaaga ma xuma laakiin waxaadba mooddaa in sheekadaas ay tahay qarow waxa adiga 8 sano ka hor kugu dhacay weliba xilligaas waxay ahayd xilliga iyada dhalashadeeda soo dhowey marka ma waxaad doonaysaa gabadhayda dhibaato inaan horseedo adduunka wuu hormaray 8 sanana waa midna dhaaftay maantana gabadhaada dhalashadeeda waaye waa markii ugu horreysay ay ku arki doonto aad marka waan ku baryaa laakiin soo lama socod gabadha sababteeda in dhibaato u gaari karto markii hore adoo dalkaaga badbaadinaya ayay dhibaatadan dhacday haddana waxaan hubaa gabadhaada inaad dhibaato marnaba u oggolaanayn murugta adiga martana ay marayn saakid axmed waxaan hubaa boqoradda u dhalay dhibaato iyo murug inuusan u oggolaan doonin farxadna uun siin doono wixii dhacay way dhaceen hadda iyo dan gabadhaada farxaddeeda waa inaad ka talisaa waa ku baryaha igu diidin dhalashadii inantaada ayaa timid invitation la'aan ayaadna ku timid maadaama inantaada tahay burcadda waxaa macquula martida meeshan ka soo qaybgalaysa inay soo raacaan adigana sidaas ayaa u timid soomahan si aad arrintooda u hubiso iyo tii kale tiimkaygu annaga uma xil saarna famligaaga inay ilaaliyaan laakiin waxaad ogaataa maadaama adigu burcadda raadsanayso oo jeceshahay iyaguna way ku raadsanayaan maadaama ay ku jecel yihiin hana ilaawina howlgalkan oo dhan adiga in lagu xil saaray mar ilaa hadda jookarka muuse imaan carruurtan way caajisan yihiin waxaynu u baahan yihiin qof ka qosliya maxaanu samaynaa hadda diya anag ma ciyaarnaana noo sheegba caajisaan dareemaynaa maxaa samaynaa noo sheeg xafladda ayaan bilaabaynaa
haye asxaabe ciyaar ayaa maskaxdeeda ku soo dhacda aniga miyaa idinla ciyaara mise qof kale ii sheega bal hadirtaan kala ma hubtaana waayahay waxaad ii sheegtaan qof murugsan miyaad aragteen ama wejigiisa xanaaq ka muuqdo meeshaan ma ku aragteenna ama adig mid ka mid yahayna ii sheega bal meelahan ma ka ag dhow yahayna ma aragteen gabadhaas ayaa ambuusan yaa lama kulmaysid waxaasoo kale maxay u samaynayaan eedadi noo sheeg ugu horeen aamusa anigaa idiin sheegaya hay garab ma idiin siin karaa okay xagga eega ninkaas waa boqorka xanaaqa ee kolkataa waad aragtaa soo maha wejigiisa xanaaq ayaa ka muuqda ciyaarteena hadda waxay ku saabsantahay ninkaas weynaan wejigiisa bedelnaa oon ka dhignaa boqor aad u faraxsan ma igu raacdeen tallaabadaas ma qaadi karnaa ma samayn karnaa ka waran hadduu ninkaas nagu xanaaqa annaga hadduu nagu xanaaqa ka waran maxaa soo bineynaa oo isku raacna soo maaha yes beela লাফাও ঝাঁপাও আর প্রাণ ভরে হাঁপাও নাচের তালে তালে দুনিয়া কাঁপাও নিয়ে চলো আজ সঙ্গে যা যা পাও ওই দেখো হাসি ঠিকানা রাগী রাজা হ্যাঁ রাগী রাজা এই তো এসেছে রাগী রাজা হ্যাঁ রাগী রাজা ভালোবেসেছে Igaraalno boorsooyinka idinka maale
akhbaarta xun ah heshay maxay tahay 2 bombo ayaan ka helnay raadaa sidoo kale radiish 2 nin ayuu gacanta ku dhigay wuxuuna jeebkiisa ka helay ciidanka raxmad ha noolaan warqad ay ku qoran tahay allora aftab ansaari iyaga ayuu la shaqeeyaa ها مدن amaanda waxaan kaa rabaa qolka kaamirada ee hotelka laga xukumo inaad tagto baaritaan aad igu samayso qofka soo galay iyo qofka sii baxa intaba waa inaad iisa ogaataa sida ugu dhaqsiyaha badan warbixin ayaan kaa rabaa intaysan qaraxa fulin waa inaan gacanta ku dhignaa orod marka soo raadi dhaqso maadaama aan la soo laabanin cid inay halkan ka baxdo aniga mar rabo midaas waa inaad la socotaa waay mudane martida halkan ayay joogayaan ciidamada demi baaristane aad ayay u mahadsan yihiin taliya burcadka dhaqdhaqaaqooda 3 meel laga soo sheegay meesha ugu horeyso waa suuqa baabagood suuq cusub inuu ahaa meel kafeteriya shax lagu cabana daday ku laayeen dadna way ku dhaawaceen dad qaarna hadda xaalad halis ay ku jiraan shit il badana qorshahooda wuxuu yahay Soomaal Bambay inay weerar ku qaadaan ha tali taariikhda maanta waa imisa okay waa 16 bisha February waan gartay allora marka haddii aan number sireedkii dib aan uga laabano taas waxay caddaynaysaa taariikhda inay ahayd 26 bisha November 2008 kanna waa 5 star hotel waxay ila tahay marka qorshahooda dhabta inuu halkan ka dhici doono hotelka hotel weyn waaye bal fiiri bal siduu u weyn yahay gurigan raaxa loogu talagalay walaal muslimiinta waxay ku hayaan guryo xumoo taqasha ayuunkan sidan ay u raaxaysanayaan kufaarta raaxadaas maanta ayaa u dambayso waxaa ballan maanta dadkan inaan xabad uga shaqeeyo oon ku baabi'iyo meesha naga keena u sheeg hotelkan sida ugu dhaqsiya badan waa inay uga baxaan dhaqsan kale hotelka dadka ku jira amnigooda waa uu sugan yahay Soomaaliya dhaawacii hore Bambay loogu geystay ma doonayo sida dhaawacaas oo kale halkan inuu ka dhaco aftaab ansaariin taas oo kale inuu sababo uma ogolaanayo ma u ogolaahayna taliya waan ku maqlaa zaakar shaydaanka hotelka ku sugan yahay qaybta afraad ayayna u sii socdaan imika kamarada ayaana ka arkay 12 qofna oo la socdaan wayna hubaysan yihiin dhamaantood madaxda waa inaad u sheegtaa fariinteedana gaarsii SOS Calcutta SOS Calcutta hawshooda waa ay bilowdeen ammaanda ayaa wax walba noo tilmaamaysa idinkana waa inaad hawshiina qabsataan dhaqsada ma la socotaa annaga qaacidooyin fara badan inaan leenahay ugu horeen kufaarka waa inaan dilnaa si aan u dilno kufaarka waa inuu qalad naga galaa qaacidadeena labaad waa baleen b ku soo dhowow baleen b qaacidooyin fara badan ayaan leenahay qaacidada koowaad kufaarka inaan dilno qaacidada labaad ku soo dhowow baleen b boom fariista wararka haddana soo gaara ayaa waxay sheegayaan qarax weyn inuu ka dhacay magaalada Kolkata dad badanna ay ku geeriyoodeen ciidanka badda kuwa bariga booliska FBI intaba waa wargelina saacad gudahoodayna ku imaanayaan waxba ha ka baqin saxafiyiinta hadalkooda run ayuu ahaa markay dhahayeen qaraxyaal waaweyn ayaa magaalka ku jira balse dadka taas ma aysan xaqiiqsanin walwalka ugu weyn waxay wahaayeen ma taqaanaan weeraradan iyo qaraxyadan isdaba joogga ah waan hubaa arrintan burcadda oo keliya ayaa ka dambaysa si hawshaan ay u qabtaan
muddo fara badan ayay ka soo baaraan degeen dhammaantiin inaa cabsataan looma baahno deganaan waa inaa muujisaan teeda kaleet waxaa idiin sheegayaa haddii uu qarax dhacay maaha annaga inaa cabsano haddii aa cabsanana micnaheedu maa inaa burcadda ka cabsano waa inaa isdejina annaka warwelkan iska daaye marwa waan kugu raacsannaa aniga ciidamada militariga ayaan ka tirsanaa waxaan ka baqayna habeertay magacayga rajiis waay waxaan u shaqay jiray qolada dembibaariska tali nambarka aa wacda lama heli karo fadlan ku soo celi kaali kamarada maxaa ku dhacay hoteelka kaamirooyin ku xirnayo idil qalqal ayaa gal waxaan samaynana ma naqaano marow waxaan u malaynayaa sababka inuusan ahayn qaraxa dhacay ee waxay ila tahay si kasta in loo jaray waxyaabo fara badan ayaa meeshan ku duugan shit ساكي 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 waan ogahay arrinkan adig inaad samayn karto waad samayn kartaa boqolkiiba boqol diyaa nolosheeda khatar uma bareeri karo waa inaan mas-uuliyaddeeda qaadaa inaad samayn karto waan ogahay diyaa nolosheeda khatar uma bareeri karo mas-uuliyaddeeda aniga ayaa qaaday inaan badbaadayna waa khasab haddii aan u baahannahay inaan burcadda gacantooda ka badbaadno waa inaan qorshe u degnaa si aan meeshaan uga baxno annaka waad saxan tahay meeshaan inaan ka baxno annaga waa aan ku qasbannaa sida ugu dhaqsiyaa badanna weliba waynu ka baxaynaa welwelka iska daaya waqti yar ayaa heesanaa halkaanna waa ka baxaynaa niyadda khayr u sheega meeshaan ka tegi karta haba yaraatee ma jirto saakid axmed wuxuu nagu xukumay meeshiina jooga waana jooga cid baxaysana ma jirto saakir axmed yuu yahay waan gartay على كل حال wax loo baahan yahay mas'uuliyadda hotelkan inaan qaadno dadka hotelka ku jiran oo inaan badbaadinaa hotelka gudihiisna goob dagaalka ma dhigi karno irigiin saadiga haatale waxa loo baahan yahay dadkan mas'uuliyaddooda inaan qaad saddex hadafna waa inaan ku shaqeyno midda koowaad dadka inaan badbaadino midda labaad cadowga inaan baabi'ino midda saddexaad ayaa waxay tahay ammaankiina waa inaad sugtaan wayaqali hawshiina qabta weerar ayaana lagu soo qaaday qarax ayaa dhacay dad fara badan ayaa la dhaco markaas adiga waxaan ugu leedahay meeshaan jooga weliba qof aan anaga weli wejigiis aan arkin xataa inaan ku kalsoonaano ilaa saakid oo meeshaan ka imaanaya cid dhaqaaqi karto hawa yaraatee ma jirto adiga waad bixi kartaan laakiin annaga meeshaan ayaan joogaynaa meelaa u socon hawa yaraatee ma jirto اوكي waayahay naftiina kaliya ka fikirina nafta dadkan dhan waa inaad ka fikirtaan burcadkaas diya meesha ay mana carruurtaan oo dhan ma cafinayaan laal ika tabixir السلام عليكم ولال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تيفيك تارا ولال لا الصع مجاهدين توحي سميين قال إذا كنت ضد عيتين ضدك دادا وحلو يقاني نفج عالي مدح هذاك لكن إذا وحاب تاجت بهالنا وجيس لا قلنا سجينا صوبت لا سجاي مع تاسبي فاسيكتي idhigeeso
maadaama aniga aan boolis la soo shaqeeyey hadalkaygu waa inaad dhegaystaan si aan ii caawiyo waana waa inaan amnigiin sugi doono haddii awood noqoto iyo haddii karti noqoto raajiif iyo muutuu kaxeeya ها إنكين war mar rabi ayaan ku dhahay sii daadi soo socda war sii daa ma yeelay sababtoo saakiin muhiim mid kugu yaa maxay tahay sheeg bal sababtoo ah saakii waa diyaabe وش بقدر dhegaysta dhammaantiina taliyaha ugu sarreeya ciidanka ayaan ahay magaciina waa axmed zaakir waxaan idin leeyahay burcadda maanta yaa sidee wax u jira dhibaato miyaa jirta هول وناكسن أيا قبتي الشيخ سادات هول وناكسن أيا قبتي وحد قبتي وح وناكسن واي ساسن كهربا ما يوران إلا يهدر تنهوش واقبيو أنا كنا وحن ربا تمسنا كور ولا لا يوحي بلن قادي إنك كصوب حمانتي هوش شاسني وقنا ما يستريا إن شاء الله يكون غير إن شاء الله توكل على الله هوتيل كمانتي هل كافر إنه كبت بعد لقى ما يابو قبي قدون كطول بابي إنا يا وابلن الله أكبر gurigeena xitaa kamarada may ku xidhan yihiin haa marow waan gartay dhammaantiina baad baxaysaan inaad baqdaanna looma baahno wadda aan ka baxnana waan helaynaa waa kugu raacsanahay magacaygu waa nandiita waxaan ka tirsanahay booliska magacaygu waa rajiif militariga ayaa ka tirsanahay go'aankaagan waa kugu raactaliye magacaygu waa maati harri waxaan ahaa ciidamada qalabka siga hogaamiyahooda ee dalka hindiya waad maadsan tahay burcadda way ogyihiin annaga halkan inaan ku sugannahay waxaana macquula halkan inay u soo degdegaan meeshan waa inaan isaga baxnaa intaan meeshaan ka baxayno balka war haddii ayna qabtaan maxaa samaynaynaa sisi kamarada ku xidhsan madbaha aawe xagga fiiri waddada ma waxay ku aadan tahay madbaha maya tan haddii aad ka baxdaan mid kale ayaad ku tegaysaan kadib ayaa gaaraysaan waddadaas haddii aad ka baxdaan waxaa idinka hor imaanaya jaranjaro iyo wiish mid ka mid haddii aad raacdaan qayb saddexaad aad tegaysaan dabaqaas dhegeysta meeshan dhaqso waa inaan isaga baxnaa ma jiraan waddooyin aanoo tilmaami karto maya mudane aniga taas ma hubo laakiin waxaa jirta hoteelka markuu jaam u yahay shaqaalaha dadka markay raashinka ama qaar ka go ama aysan ku yaraadaan meel ay ka baxna ayaa jirtay raashinka keeni jireen halkaas wadda oo keliya ayaan ogahay marka waddadaas daan ka baxna ka waran bravo waddadaas haddii aan marna waana tusi kartaa soomaa nakana dhammaantiin soo baxaysta waddadaas ayaan ka baxaynaa sidaas ayaanu baxnaa codkiina halkan ka soo baxna caan waay dhegeysta waxaana laga rabaa dadkaana inaan degnaantooda ilaalino oon waxba aanan samayn waa saxan tahay haddii aan kontarooli weyn xanaaqooda murug ayay noo keenayaan nandita hawshan adiga ayay ku taallaa qorshihiin adaa laga rabaa hal fikrad ayaa maskaxdeeda ku soo dhacda waa inaan dadkan ka soo aruurinaa ciwaanadooda iyo moobeeladooda see kula tahay rajiif sidee kula tahay adigana waa beello macluumaadka dadka meeshan joogo idil waa muhiim si aan wax kasta
haye adigana maxaad ka dhihi lahayd haddaaba isku raacdeen waxba kama qaba anigi waa gartay nandita adiga hawshada waa inaad bilowta rajiif garab sii nandita diyaar waa nawe kaan marwo zaki hay mudana waxaa muhiim ilaah hotelkan marka ugu horeysa amnigiisa inaan iska hubino waad saxan tahay taliya aniga kuuga wax karinaya waan la hadlay martidana si wanaagsan ayaa loo martisooraya waxna kama halaabayo hagaag anjeli asxan ayaan doonaynaa soo daa waxaan doonaya inaad raacdo sababtoo hotelkan qofaan adiga ahayn ma kala yaqaano waddo waad sodsisi meeshan aan uga baxsan dadkan aan waddo ugu soo soo socmo labadaan waddo maxay kala yihiin mudane dhankan waxaa kaa xiga qorag shirka lagu qabanayo dhankan bidixna waxaa kaa xigo dhisme cusub oo la dhisay 2015 jaranjarooyinka iyo wiishka dhankay iga xigaan midda sayn dhankaas qol lagu shiro kaliya ayaa kaa xigo laakiin dhankan waxaan u maleynayaa jaranjaro kaliya inay kaa xigto mudane aniga ayaana kaawa meeshaas waan ka bixi karnaa dhawaaqa rasaastan halkay noogu imaanaysa ma ogaan kartaa taliya dhismaha cusub ayaan dhawaaqan mar walba ka maqli jirnay haddana waxaan u malaynayaa isaga meeshale inay tahay waa ku gartay taliyana kaa yaaqay haye soo soc waxaan u malaynayaa hotelka qaybtiisa labaad inay martida ku jirto sababtoo meeshaas xaflad ayaa ka jirto meeshaas inay isku qaranayaan waa macquul dhammaantoodana waa taajiriin marka kufaarta meeshaas waa inaan ku baabi'inaa asxaabay maxaan sugaynaa fursadda ugu dambeeda ayaan haysanaa waa inaan dadkaas meesha ku baabi'inaa kufaartan waan dilaynaa halna kama badbaadayo hay saaxiibadana keena
istiiji gabadheeda quruxda badneed aabbaha wuu ku imaanayaa wax makaa halaawa anakaa kula joogno adigu waayo taa aabbahan muu tegi kartid laakiin hal mid samee kaala halkan soo istaag ayeyda la joog anigaa baxaayo kadibna aabbaha ayaa ku keenayaa istiiji gabadheedii maxaa kuu qorshaysan adiga bannaanka inay aadaan rabtaa wax hubana gacanta ku maysid waxaasoo dhan aniga ayaa xalinayo waana ogaa dad fara badan in bannaanka lagu dilay laakiin aniga iyo welwelna aniga ayaa isbasirinayo okay inta garab nagala siinaya anaga ma sugi karni mar waraayo burcadda waxaa suurtagal ah halkan inay noogu imaadaan marka waa in sida ugu dhaqsiya badan meeshaan saga dhaqaaqnaa laakiin taas waxaa ka horreysa kajada amnigeeda inaan sugno waad la socotaa intaana meesha soo gelin 2 qof ayaan dilno iyaga ka mid ah sidoo kale waxaan waa meesha inay imanayaan goordhow sababta CC kameradan ka arkay la saxanta waan imaanay goordhow laakiin waxba ka baqan laga iska difaaceen okay intay naga soo helayeen waqti ma waystaanba intaas ka hor meesha ka tagay ala kulli xal albaabiyada idil waa inaan iska xirnaa waa kuwii jikada markaas ayaa wax walba noo hagaagi karaa ilaa hadda dadka waxay isweydiinayaan sababta qaraxyadan isdaba jooga ay u dhaceen laakiin taliya raagaf wuxuu ballan qaaday tiim inuu sameyn doono waliba gacanta ku soo qaban doono kuwa qaraxyada ka dambeeyay waliba sida ugu dhaqsiyaa badan sababtoo isaga ayaa ballan qaaday shacabkana u sheegay in gacanta lagu soo dhigi doono waxaana rajaynaynaa balankiisa inuu ka soo bixi doono hoteelka qaybta kale ee qaraxday ilaa haddartaan baaritaan ayaa lagu wadaa wixii akhbaarada soo kordha waa idinla soo socodsiin doonaa sida ugu dhaqsiyaa badan sababtoo booliska waynu ku kalsoonahay tallaabada ay qaadaanna guul ayay ka keenaan rakiish biima ogeyn kartaa hamaru zaakir taliyahan waan la hadlay wax walbana waan wargeli wuxuuna igu yidhi tiim khaas ayaa idiin soo diraya hoteelka amnigiisana waa la sugaya sidoo kalena warbixinta meel walba ayaa lagu faafiyey laakiin waxaan hubaa burcadda wax walba inay ogaadeen xilligan taas waxay la micno tahay wakhtiga ayaa nugu yar burcaddana waxaa macquul ah weerarkooda inay laba jibaaraan midda kale waxaan fahmay weerarkan oo idil waxay u qaadayeen doorashada inay hakiyaan warka aad tirood ku saxan tahay sida uu dhaqsiyaha badan meeshan waa inaan ka baxnaa booliska iyo militariga waxay rabaan qorshaheenna in ay qorshe kale u keenaan waxaan kaa rabaa qorshaha aniga aan ugu talagalay in uu iga dhicisoobin waxaan rabaa in aan ismuujinno kaafiriinta waxaan rabaa waxa aan nahay inaan tusno waa ballan walaal anigaa samaynayo hoteelka ciddii lugta soo gelisa waa ballan lugta inaan ka jaro xitaa hadday soo wataan militariga hindiyoo dhan cagta ayaan marinayaa aniga ayaana middaas kaa ballan qaaday insha allah waa ku baryaa si fiican oo fikir haddii uu jiro albaab kale aan kan ahayn oo aan ka bixi karno waad noo sheegi karta ma jiraan ilaan sartaani waa sar qadiimi ahay haa taliya jaranjaro kale oo qaybta hoos noogu taal ayaa jirto waqti hore ayaan isticmaali jirnay waan ku geen karaa jaranjarooyinkan haddii aan dhammayno qaybta dambe waan tegaynaa soo maha haa taliya haddaa jarjarooyinka aad dhammaysto waxay ku geenayaan qaybta baabuurta lagu xareeyo beella waa yaaqa wax beel ah ma jiraan taliya jarjarooyinkaasina muddo hore ayaan isticmaali jirnay markii dambena qayb iyada ka mid ayaa la shamiindeeyey okay qaybta la shamiindeeyey waa la jebin karaa soo maahan danta haddii ayna baddo waan gartay kaalay waayahay gabadhayda inaa cabsato looma baahna aabbaaga wuu imaanaya iga raali noqoya gabadhayda gabar wanaagsan hataa waa kana aabbaa wuu imaaday gabadhayda mid ayaa jirta oon horey kugu sheegin waa inaan adiga ku jeclahay aabbo anigaba waa ku jeclahay bravo gabadhayda waa ku sugayaa ii soo laabo anjeli isora adigana baastoladan hayso
taliya برافو قيسي ايد سكنيكتي قولي سوق قبصة مركا هي وسوق سوق قبصة عبصنا هي واكنا هي اوكي هذا ميشن وامان قولي انا ذيك هاي السوق وحنكاروا مركا جكذا ان ديب ugu laabato maya aniga kaama tagi karo adigoo xaaladda xun ku sugan may way igu adag tahay halistu way sii ziyadaysaa haddii aad halkan ku sii raagto ay garad saman waxaan ku dhahay samee ordbax laakiin tali noloshaada halis ayay ku sugan tahay idhageens aniga hay cabsanan waqtina waan haystaa jikada ay tagaysaa waxaad noo sheegtaa 30 daqiiqo kadib inay soo bixi doonaan halkan ka baxsanayn way garad saman anigana waxaan isku daya dadkan inaan naga reebo taliya dhaqso marka maya amarkayga qaado yalla saca way sacahe cabsida iska daa mudane saak wuxuu ii sheegay 30 daqiiqo kadib inaan ka daba tageena meeshas waxaa ku yaalo jaranjaro qadiimi ah waa halka wada anaga noo banaan meeshas aan kaga bixi karno waanu ku badbaadaynaa sida aniga aan jeclaa misna aan dareemayo marwa wax cusub miyaa jiro ninkii ha sameynha aasin oo ku baryaay waxaan rabaa inaan idin sheego 30 daqiiqo waa la dhaaf yaaqi idinka waxaan dhahnaa mudane zaakira imaana zaakirna ilaa hadda ma imaan yaaqi meesha ma ku dhimanayna idinka hal noo keenana meesha ku baxnay mudane saakir wuxuu qorsheeyay meesha inaan 30 daqiiqo uga baxno wuuna dadaalayaa isaga way saxantaa gabadhan ninkaas annaga ayuuna difaacaya annagana waxaan ku khasbanaa sidiisoo kale in aan u difaacno meeshaanna ma ka tegayno ilaa uu ka yimaado asiga ayaan sugaynaa oo keliya waana waardiyeynaa ilmahan taliya adigaba waa saxan tahay daakirow imaan anaga meeshaan kama tegayno dadkaanna ma wadayno daakilin sugayna unuka wax kala samaymayno anigaba sidaas ayaa ila wanaagsan mudane saakir oo keliya ayaan sugayaa meeshan aan ka dhaqaaqna lagama yaabo waa inaan noqonaa hal tiim isku xiran yaana kala dhicin warna soo gaar ayaa wuxuu sheegaya hoteelkaas aniga inaanan u dhawaan karin burcad ayaa hoteelkaas qabsatay qofkii u dhawaadane wuu ku dhimanayaa sax waa aniga horta hal fikiraan qabaa fikirkeyga waxaa waaye weerar inaan qaadno weerar cirka ayaan qaadaynaa waxaa loo baahan yahay 2 diyaarad oo kuwa qumaatiga u kaca ah labadaas diyaaradood markaan helno kadibna 12 kumaandoosaan saarana hawshan socoto laakiin 12ka aad sheegayso ma ku filan tahay ii sheeg bal absolutely way ku filan tahay hadda ka hor soo lama socotid howlgalkii bombay ka dhacay 50 qof isaas ku cuneynaan ku dhahay howlgalkaasba 10 qof aa soo fulisamo kanna way ku filan yihiin maya 22 kuwaas ahaayeen marka sidee uu kalsoonaan kartaa ii sheeg bal kaalo bal adiga maxaa samaynaysaa kaalme kaale ani soo raacbi horta had fiiri meeshaan unuka nabad qabin inaan ka bixin may kula tahay may
asuguna ku dhahay burcadaas intaan ugu imaanka bacdin ka weyna kusina waana dhammaantiin ku dhahay meeshaa ma ka bixin waan dhowr qof oo anaga noo shaqeeya ayaa gudaha ku jiro midas ogaada bal sidee gudaha ku galeen yaa suu ogolaaday ii sheeg igaraal noqo taliye inaan kuu sheego waa jecel laakiin waan kuu sheegi waa dhibka intuusan dhicin ayay gudaha ku jireen laakiin arrintaas maaha mid ay shakhsi khusayso annagoo dhan ayayna wada khusaysaa horta sug yaqay si markii loo fiiriyo arrintan horta gudaha in dad la geliyo wax fiican waay sababtoo ah burcadaas akhbaarteed unug ma heli leen mayno aniga ahaan haddii aan iska hadlo dadka meeshan ku jira kuma kalsoonaan karo oo baryaa maskaxdaada soo celi dadkan ha dhegaysanin danteena ma wadaan dantooda keliya ayay fiirsanayeen maxaa kugu dhacay yaqe maxaa kugu dhacay la iskaga jira dadtan danteennay ka talinooyin ma hor dhaceen warkood inaan maqalno sugata inaan wax sameeyo waa sideen yeelaa laakiin sugba war lagu qaadiya iga aamus buuqaan oo dhan looma baahna afkaaga iga xiro aamus yaaqi shubdhaadi horta meeshaa waa ka bixinaya meeshaa ma joogi mudane meeshaas dhalashaa ka jirtay sidaasuu ku galay magaciisana wax kale lama yidhahda waxaa la yidhahdaa daakir taliyo ciidan u ahay سكوتايا مركل إنها اللي حريرتي يحتسب تلفون سأسدعو يحسوق يا هلو adeerka waa ku tuugaya ma naga soo gaartiino jikadaan ku jirnaa meeshan kuwa burcdan oo nuukar wareegso hoteelkii aan joognaa wax lee sameeya هي أنا كو مرتد هوتيل كميدا سو يا أخي وحسني شيء جكده إني كحيرين لما تود دتكم بدبادي ربان إنك وحنا لقربا سيده نقصيا بدن إنك بدبادينو مرك وإنا وحسوبنا يا أخي يرال نقطة أنا وحسوبنا السلام عليكم ولاal وعليكم السلام qorshihii ugu fiicnayaan kuu soo ogaaday waxaan kaloo kuu soo ogaaday martida meesha ay ku qabaysan yihiin meel kale maahan meesha ay ku qabaysan yihiin waa jikada qaybta jikada haddii aad tagtiin wax allaala waxaad doontaan ayaad ka samaysanaysaan howlgalkaana waxaan rabaa si quruqsiyaa badan leega soo gebagabeeyo tan kale hoteelka saaqid axmedaa ku jiraya gabadhiisana kama marraa go'aankaad qaadatay waad ku saxantihiin aniguna waa idinku raacsanahay zaaki aniga waa saaxiibkay waana qof aad iyo aad iigu dhow sidoo kale isagu waa howlgalkan oo dhan qofka loo xil saaray waxaana muhiima hadalkiisa inaan qaadano maadaamuu idhi 30 daqiiqo waa inaad isugtaan isaga waa inaan amarkiisa qaadanaa tixgelina waa inaan u muujinnaa tallaabo wanaagsan waa inaan u qaadnaa haddii kale meeshan kama badbaadayno innagoo noolna kama baxayno ixtiraam waa inaan muujinnaa dadaal ayaa idinka rabaa ترتيب dhaqso is-ilaali tartiib
dhammaantiina waa inaad dhaqaaqdaan أمس أو كبرياء أفكك حيرو هذه الشقرة يا مغلين مكان هوس إيه كجرا البضنة waddadan ayaan ka bixinaa kuligeen ina keeno meesha ayaan noo banaan soo socda idhageyso taliyaha wax walba waa inaad wargelisaan anigana halkan ayaan ku sugnaanaya waxaan doonayaa ninkaas inaan gacanta ku dhigo raqsada marka maxaad nooga hadhaysaa waxaan doonayaa ninkaas inaan gacanta ku dhigo ninka lagu magacaabo aftaab ansaari ha samayn baa ku leeyahay waan samaynayaa markaan dood ma taagna ee waxay taagan tahay waxaa idin dhaho keliya inaad samaysaan aftaab iyo anigana waan isku aftiranaynaan ku dhahay maanta waa saxantaa wiilkii anigana waa kugu raacsanaa haya dhaqsada dhaqaaqe ammaanta soco دقاقة لك دقاقة يا أخي دقاقة قربنا سيا أمبلاس يا أبا هنا قبل الحالة تدوي أمبلاس يقول كده حامله واي
taliya waan isku daynaa gudaha inaan galno waan isku dhegeyso amaanda ayaa lagu magacaaba waxaana ka tirsanay tiimka loo xilsaaray howlgalka inay ku guuleystaan i dhegeyso wadadan inaad marta ayaan kaa rabaa haddii aad rabto inaad dadkaas badbaadiso hadalkayga qaado waan ku barayaa ma kula taa marka sahal inaan haa dabcan aniga ayaa kaa huba taliya adna waan ku barayaa howlgalkan ogolo ninkan meeshan inuu ka galo wax walbana markaas way hagaagayaan aniga saas ayaa ila wanaagsan السلام عليكم وعليكم السلام تيمك أسكرت جودها أي سوق كلايا أديك أيني كوبادي كوبوين وحن كهربا بنانك إنا وصبح صدق التقصيها بدن صوص عيان كلها أعوذ بالله ساعة لا قبل حبسك يا لين كعبس ruuxanta madow dilkayga maxaad ka faa'iidaysaa annaga sideenaba waxaan u noolnaa inna la dilo ama aan wax dilno magaaladan idilna waan gubayaa hadafkeennana waa xurriyad muslimiintoo idilna xornimo ayaan siinaynaa insha allah hadafkeennana waan gaaraynaa jinnada ayaan gelaynaa oo kaale adiga jinnada ma rabtid shahiid inaad ku dhimata ma rabtid miya annaka dad walaalo ayaana adiga waxaad ku nooshaa dad ay gaala joogto adigoo dhar ciidana wata misena anigaad biskoolad igu soo taagaysaa anigoo walaalkaa eh sabab war waddankan maxuu ku siiyaa ii sheeg aniga ayaa runta kuu sheegaayo adinka tiridiinna waa yar tahay balse muslimiinta waad yeestaan sawir oo keliya ayaad ka soo qaadaan agtiinnana wax kama ahan meel walba banaarasi ku taal marka la furayo subaxii bisinka ayaa lagu furaa waddooyinka waaweyn magaalada markaad dhex maraysa astaanta islaamka ayaad arkaysaa madaxweynaha loogu jecel yahay waddanka soo maran waxaa lagu magacaabay a b j cabdilkalaam saddexda agtar ee suberstarkan waxay ka soo jeedaan reer khan dhammaantoodaba waa muslimiin aqoonsiga ay wataan waa indiya dadkaasba waddada wanaagga haddii aan lagu tirin anigana waddada wanaagga aa sheegaysid uma babaahnin ugu horraan adiga qur-aanka ma akhrisaa suuratun almuuminuun aayadda 116 waxay ka hadlaysaa dadka adduunka joogdhan inuu ilaahay leeyahay boqortinimana keligiis ay u sugnaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walboo koonka saaran asaga ayaa abuuray wixii ka maqanne asaga ayaa ka maqnaysiiyey qofkii diinta wanaagsan ee islaamka qaada waayena dunidan ma ahan dunidan inuu ku sii waaro suuratulkaafiruun waxay sheegaysaa ayaad ilowday qof walbaba inuu diin leeyahay diintaada haddii uusan rumaysnayn inaad taada ku qasabto maahan tiisi waa inaad u daysaa isaga ay xaqi fahmi dooneen islaamkuna dilna ma barin ee kalgacayl iyo maxabba ayuu ina baray adiga muslimnimada waxaad ka fahmaysid haba yaraatee ma lahan waxaad tahay kaafir adduunka la siiyey qarxii dhacay 2009kii ma xasuusataa oo adiga xaaskaada ay ku dhimanaysay hinduu ayay ahayd naag hinduu oo mushrikada ayaad guursanaysaa kadibna islaamnimada ayaa wax ka sheegaysaa
may dadka ayaad been iyo barbagaado ku khiyaanaysaa kadibna waad baabi'inaysaa ciqaabtaadu maxay noqon karaysaa ma ka fikirtay ii sheeg saki xaaladana dhexda ka taagantaha dil haddaa ku xukunto qofba qof ayay kuu dhiibaysaa kadibna dalkoo dhan wuxuu noqonayaa wada dhiig labalaba ayaa laysku dilayaa dil marka xaal ma noqdo waa ku barya tallaabo qaldan inaa qaadda jaahilnimayaysan kuu geynin aayadaha qur-aanka ah labadiinaba hadda dhow aad ka hadlayseen asigaba haddii aqoonuu u lahaa waxaan xaqiiqsanaha inuusan qof bini'aadana dili lahayn adigana ha fududaanin oo ha dilin iska daa labadiinaba aqoon uma lehediin waddada saxan inaa qaadda haddii aad u baahan taha naftaada waa inaad xumaatada ka ilaalisaa waddo xunna aad u diiddaa saki ma la socotaa horta hadda ka hor waxaa jiri jiray 3 nin waxayna u wada tartamayeen qoraa in ay wada noqdaan saddexdooda ugu dambeyn mid ayaa si fiican u dadaalay heerna gaaray run ahaanta aniga waa jeclaa inaad ii aarguddo dhiig badanna darteed aad u daadaysa balse go'aankayga hadda wuu isbeddelo sidii hore ma aha আশিশত উচ্চ পাহাড়ের মতো বলে ভয় দেখে কত এগিয়ে চলো চলে বারুদের মতো চেষ্টা তো করে দেখো কঠিন সে যত একসাথে বলো থেমে যাবা না কঠিন সময় অজানার ভয় করে নেব জয় থেমে যাবা না কঠিন সময় অজানার ভয় করে নেব জয় hubka annaga aan ku dagaalamayna maahan hub risaas ah ee waxaa loo baahan yahay in aan ku dagaalanno dagaal oo geesinimo si burcadda aan u baabi'inno run ahaantii dhallinyaro fara badan ayaa jirta oo dawladda ka soo horjeedo waxayna rabaan mar walba dawladda in ay baabi'iyaan laakiin waxaa u babac dhigay wiil geesiya oo ciidamada ka tirsan rabana dalkiisa iyo dadkiisa intaba in uu badbaadiyo ninkaasna nin kale maaha waa ninka keliya ee dadkan soo badbaadiyey magaciisana waxaa la yidhaahdaa zaakir axmed maadaama hawshii wanaagsaneed oo soo qabtay ouna gacanta ku soo dhigay dhallinyaradii dawladda mucaaradka ku eed mar walbana dhuunta u taagneed waxaan sii haynaa hadda kadib abaalmarin waxaa kaloo wax laga xumaada ah madaxa qaybta amniga in arrinkan oo ku lug yeesho raagab ayaga la shaqaynaya wuxuu ahay dhilqa annaga nagu dhex jiro ayagana warbixinta u gudbiyo bakistaan ayuuna ka soo jeedaa jinsiid ahaan laakiin raggii howlgalkaas ku soo guulaystay ee ninkaas ka shifay waan u mahad celinayaa arrinka ay sameeyeen iyo hawsha ay qabteenna waxay noqonaysaa howl taariikh filimkan waxaa lagu tarjumay studio Farmbroch Mogadishu ঢাকলে আকাশ রোদেরা আড়াল হলে আধার নামলে হঠাৎ হাওয়ারা মাতাল হলে চিতার গল্পগুলো ঠিকানা বদলে ফেলে চেষ্টা করার আগে তুমি হার মেনে নিলে
পথে বাধা আসে শত উঁচু পাহাড়ের মতো বলে ভয় দেখে কত এগিয়ে চলো চলে বারুদের মতো চেষ্টা তো করে দেখো হোক কঠিন সে যত একসাথে বলো পথে বাধা আসে শত উঁচু পাহাড়ের মতো বলে ভয় দেখে কত এগিয়ে চলো চলে বারুদের মতো চেষ্টা তো করে দেখো হোক কঠিন সে যত একসাথে বলো থেমে যাবা না কঠিন সময় অজানার ভয় করে নেব জয় থেমে যাবা না কঠিন সময় অজানার ভয় করে নেব জয় আজও পরাধীন কেন স্বপ্নটা ধোয়াটে কুয়াশা যেন নিজের কাছে বন্দি নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী আমি নিজের থেকে পালানোটা এতটা কঠিন কেন ভেঙে যেতে পারি জুড়ে নেব থামবো না লড়ে নিতে পারি জিতে নেব হারবো না শোন লড়াইটা নিজের সাথে আজ বিনা মেঘে পড়ে যাবে বাজ অসম্ভবহীন কোনো অভিধানে এক লোখা অভিমানে বিশ্বাস রেখে মনে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে ভয় যদি পিছু টানে যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে দাঁড়াতেই হবে